maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ayaa maanta xukun qaybihiisa kala duwan ay ku riday rag lagu soo eedeeyay inay soo geliyeen magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay gaari lagu soo buuxiyay waxyaabaha qarxa taasoo inta badan ay ka hortageen laamaha amniga maamulka Koonfur Galbeed. Xukunkaas lagu riday eedeysanayaasha ayaa waxaa maanta saxaafadda la wadaagay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad gaashaanle dhexe Aadan Abuukar Maxamed. taariikhdu markay 3 bishii 2019 maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fariisatay dacwad qaabeedkii loo haystay eedeysanayaasha kala ah kow Isaaq Cusmaan Maxamed oo loo yaqaan Isaaq Borow ina Xabiibo Dacarow Xasan 20 jir ah ku dhashay Buulo Barako degan Baydhabo ahna Kirishbooy baabuur hoomey ah laba Cabdi Yuusuf Macalin Aadan ina Nuuna Isaaq Kuule 20 jir ah ku dhashay degan Buulo Barako ahna darawalka baabuurka hoomeyga ah saddex Maxamed Aadan Yuusuf ina Xaawo Cali 50 jir ah ku dhashay Buulo Barako degan Baydhabo ahna mulkiilaha baabuurka hoomeyga ah kuwaasoo xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad si wada jir ugu soo dacweeyay in ay ka tirsan yihiin ururka nabadiidka Al-Shabaab lana shaqeeyaan isla markaana laga soo qabtay kontaroolka Hareerikaadiyow taariikhdu markay ahayd 12 bishii 2018 kadib markii baabuurkii ay wateen oo noociisu ahaa hoomey taargo number BK eber 14 markay booliisku baareen laga helay 3 bambo F1 ah oo ay ku soo qariyeen loor galey ku jirto kuna sii qariyeen Tayub mooto bambooyinkaas oo ay ka soo qaadeen tuulada Raamacadey oo ay ka taliyaan kooxda nabadiidka Al-Shabaab si loogu waxyeeleeyo shacabka degmada Baydhabo dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneyd aayadda 33 suuratu Al-Maa'ida iyo qodobka 221 xeerka iqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyo qodobka 1 xeerka iqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad looga horqoray eedeysanayaasha oo ay ku qirteen in baabuurkii ay wateen oo hoomey ah laga helay 3 bambo F1 ah markii lagu baaray kontaroolka Hareerikaadiyow ayna 3daas bambo ku jireen loor galey ku jirtay oo laga soo saaray tuulada Raamacadey una soo saaray nin ay magaciisa ku sheegeen Cumar Maadey markay dhageysatay marqaatiyaasha la horkeenay maxkamadda midna u weydiisay marag furkooda waxay si buuxda u cadeeyeen in eedeysanayaasha lagu soo qabtay 3 bambo F1 ah oo ay ku soo qariyeen loor galey ku jirtay iyagoo ku soo qaaday baabuur hoomey ah oo ay wateen markay dhageystay doodii qareenada oo ahayd in eedeysanayaasha xabsiga laga sii daayo loona celiyo xorriyadooda maadaama lagu soo qiyaanay bambooyinka sidaas darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in eedeysanayaasha kala ah kow Isaaq Cusmaan Maxamed Isaaq Borow laba Cabdi Yuusuf Macalin Aadan saddex Maxamed Aadan Yuusuf ay wada yihiin dambiilayaal galay dambigii lagu soo oogay waxayna ku xukuntay min 2 sano xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamadda waxay la wareegtay 3 bambo F1 ta ahaa waxayna ku wareejisay ciidanka booliiska si ay u xafidaan cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furan racfaan inay ka qaataan sidoo kale maxkamadda taariikhdu markay ahayd 3 bishii 2019 waxay u fariisatay dacwad qaabeedkii loo haystay eedeysana gacan ku dhiigle dable Daraawiish Xasan Ibraahim Aadan ina Cibaado Isaaq Nuur 22 jir ah ku dhashay Qansax Dheere degan Baydhabo ka tirsan ciidamada Daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya degmada Buur-Hakaba kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacweeyay in uu si culka ah u dilay taariikhdu markay 9 bishii 8 2018 marxuum la oran jiray ex dable Daraawiish Ibraahim Aadan Abshir waxaana ku xukuntay 100 halaad oo geel ah oo ah diyadii marxuum ex dable Daraawiish Ibraahim Aadan Abshirow ilaa uu ka bixiyo diyadaas oo u xirnaanay lama sii deyn karo cidii aan ku qanacsanayn xukunka